caqligan ilaahay uu siiyey bani aadamka weeye midka ka fadilay oo laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiimka samaystanshada iyo walaqad karramna bani aadama karaamadaasi waxa weeye waa karaamada uu kaga duwan yahay khalqiga kale uu kaga duwan yahay xoolaha kaga duwan yahay caqliga hadduusan qofku lahayn waad ogtihiin oo takaaliif lama saarin mas-uuliyad ma qaadi karo hadduu ilmaha yar yahay uusan caqli soo gaarin hadduu waalan yahay qofku xataa qofka jiifa xataa qofka miir daboolma ee wuxuu ka tago xataa qofka waxaasoo dhan takaaliif ma saarna caqligan marka noocaasa siday hadda culimadu sheegayeen ka mid a waxyaabaha waaweyn ee diinta usoo degtay in la ilaaliyo caqliga uu ka mid yahay oo in lagu xadgudbo ay kabiiro tahay oo laisku cadaabayo caqligaas wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo aniga waxaan aaminsanahay mararka qaarkood markaad fiiriso caqliga siduu ilaahay uga hadlay qur-aanka ugaga hadlay waxaa aan aaminsanahay inaan u baahannahay inaan xoreynta caqliga iyo caqliga inuu dadka la xusuusiye inay caqliga adeegsadaan oo aada loo xusuusiye inay lagaa maarmaanta maxaa jira ilaahayba qur-aanka afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat miitaallaa loo keenay mar walba qur-aanka markaad aragto waxaa loo keenayaa waxa fiiri bal waxaa ku fakera afalaa yatafakkaruun afalaa tacqiluun afalaa yatadabbaruun kulli waxaasoo dhani waxay ku tusinayaan oo ilaahay kula hadlayaa dadka in uu caqliga kiciyo oo caqligan dee switch offka ah ee hurda ee aan fakeraynin in uu la kiciyo oo la daaro oo deedna caqligaasi shaqeeyo markuu caqligu shaqeeyo ayay dadku xisaabtamaan innagu haddaan Soomaali nahay qofku laba jawaanib buu leeyahay midna waa dhinaca emotionka midna waa dhinaca caqliga dhinaca emotionka inagu badan dhinaca maadaama inagu badan yahay kaasaa aada u kacsan markasta innaga haddaan waana midka keenaya qabiilka iyo qabyaaladda iyo maxaan ku dhahaa waxyaabaha aan wanaagsanayn dalka u wanaagsanayn waa midka keenaya in la iska raaco maxaan ku dhahaa nimanka hadda aan ka hadlaynay khawaarijta iyo wixii la mida waa midka keenaya in meel walba laga cabo bad walba laga soo cabo midka keenaya waa dhinaca emotionka diin baa loogu yarayaa qofka emotionka waa la kicinaya caqliga isma weydiinayo qofku war culimadii waa weynayd waa kuwan sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel waxay fahmi waayeen ay garan waayeen ee wiilka yar ee hadda sheekh mukhtaar sheegaya ee la saddexda buug wata uu garanayo muxuu yahay hadduu caama yahay qofku soo waxba garanayn oo sidiida waxba ka aqoon hadduu caqligiisa dib ugu celiyo caadi u fakaro war diinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel aysan fahamsanayn ee canugan yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow hadduu caqligiisa dib u fakaro oo dhaho warniyow nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee hebel ee hebel ee hebel ee godadka ku jira ee isqariya ee aan dagaal gelin ee aan meel u soo bixin may ayagu isqarxiyaan may suunka isku xiraan may ayagu isdilaan waay hebel ilmaha yaryarka ah ay loo laynayaa waay haddii janno la aadayo maxaa jannada asaga ku diray hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo waxaa u soo baxaysa in uu meesha ka joogo mushkiladdu marka maxay tahay caatifadda oo kacsan iyo caqligii oo hurda inagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno culimadu dowladda xoolana kuma qabaan xilna kuma haystaan waxay u tartana male oo gaar ah marka sabab ay mana xirxirno oo dowladdu
sida meelaha culimada laga yaabo in la qasbo ama la xirxiro ama la pressure gareeyo meeshana ma taalo culimadu waa xor marka sabab keeni karta inay 300 ka badan oo culimo intay isu timaado Soomaaliyeed oo ay ka yimaadaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa fatwooyin ay soo saaraan in la qaadan waayo oo la yiraahdo fatwada sax maaha waxay la mid tahay in aayadihi la qaadan laayay in ahadiithti inaynu maaragtay aynu ka maaganayno ay u eg tahay marka horta waxaan qabaa aniga aqligeena dib aan ugu noqono haddaan Soomaali nahay dadka Soomaaliyeed sidoodaba nolosheenna waxaan u baahannahay inaan aqliga oo Ilaahay karaameeyay inaan adeegsano haddaan su'aalo yar isweydiino xoolahan dadka bixiya nimankan ay loogu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka urur ahaan hadda gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistiyaasha millions of dollars ay haystaan xagee ka keeneen ma cirka ugu soo degtay uma soo degin xoolo la siiyo waaye waxaan aaminsanahay 90% dad Soomaaliyeed bay ka qaataan dad Soomaaliyeed bay ka qaataan haddaba su'aashu waxay tahay tusaale ahaan haddaan anigu company leh ama aan notaaye leh ama aan makhaayad leh ama aan macdaa yar iyo dukaan yar meel ku haysto ama aan dhowr guri ku leeyahay meeshan oo nimankaas ay lacag aan siiyo lacagtaas yaa ii damaanad qaadaya inayna aniga igu dilayn oo ina walaalkay ku dilayn oo ina aabahay ku dilayn oo ina hooyaday ku dilayn oo ina xaaskayga ku dilayn oo ina carruurtayda ku dilayn yaa ii damaanad qaadaya ilaa nimankii dadkayga ma kala soocayaan 50 qof oo meel fadhiday hal mar qarxinayaan waana ku dhinteen adiga yaa ku damaanad qaaday inaad ku dhimanayn oo ina kugu dilayn wayna inoo tirsanayne haddii la tirin lahaa dadka lacag siiyey ay dileen waxaan aaminsanahay boqolaal inay gaareen dadka lacagta ku bixiyey ee siiyey ee haddana ku dhintay ma aha inay asagii si toos u dileen doonteen maaha laakiin hotel buu fadhiyaa makhaayad buu ka qadaynayaa baabuur buu wataa jid buu marayaa asaga iska lugeynaya qofka meel buu socdaa deedna nimanka way dileen hal mar bay qarax kiciyeen deedna ayagu maxay dhaheen yubcathu calaa niyati waa iska wada dilaynaa deedna buuggii yaraa sheekh mutaal sheegayay aakharaha lagu soo kala bixin doonaa lagu kala qaybinaya marka su-aashu marka waxay tahay war haddaad adig waxaad bixinayso adigu inaad isku disho ood xaaskaaga ku disho ood ilmahaaga ku disho bal dad kaleba marka la fiiriyo ma dawbaa waxaa kaloo meesha ku jira ma dawbaa inaad yani qaraxa iyo rasaasta iyo suumanka iyo baabuurta ma bilaash baa lagu helaa soo lacag lagama bixiyo lacag baa laga bixiyaa waxaasoo dhan xoolaa lagu bixiyaa soo ma hadda bilaash laguma helee suurtagal ma tahay caqligu ma keenayaa rasaastii aad igu dili lahayd baan kuu gadayaaye hoo lacagta soo iibso kadibna igu dil aniga xaaskayga ku dil hooyaday ku dil aabbahay ku dil ilmahayga ku dil qaraabadayda ku baabi'i dariskayga ku baabi'i saaxiibaday ku laa ma caqli baa caqligu waxaa ma keenayaa ma ogol yahay waxaan filayaa in la soo gaadhay xilligii caqligeenu shaqayn lahaa haddii caqliga uu meesha ka baxo marka lagaba tago alla ka cabsi marka lagaba tago inuu qofku u hoggaansamo diintiisa islaamka ee meeshay mar dhahday uu maro haddii uuba iskaga balleexdayba waxaa kaaga daran oo dhibaato weyn ah haddii qofka nimankaas lacag siiya ya lacag siiya haddana uu u arko inuusan dembiba gelin wax dembiba inuusan gelin
ama laga yaabo dadka qaarkood inay aaminsan yihiin inay cibaadaysteen inay dadka qaarkood aaminsan yihiin. konsaanada jira waa garanaynaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhan haysta. waxaa jira dadka say u leynayeen ee markay hanjabaan uga dhabeynayeen ee dadku u baabiinayeen ayaa waxaan gaarnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil jilib fadhiyay ganacsatadan ugu qiimaha badan culimada halka laga soo hadlo la yiraahdo nooimo waxaan u malayn rag badan oo fadhiya meesha waatay nooimo meel hebla noogimo oo deedna halka intay ka qaataan baabuur soo ula si jag meesha jidka cadaab kadeed meesha lagu geeyo oo halka ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaas oo xoolo xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dulaysan oo nafti Ilaahay loo keenay oo wiil yar u soo hanjabay 10 hanjabood ku soo dhuftay oo dhiman noolayn waxba aan la noolayn marka dambe ya Allah lagu soo celiyo oo orna dhaaf tag Soomaalinimada xatal iyo gobonnimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf qof Soomaali oo sax ah aqligii baa dadan maahane markii aqliga dabaysha laga afuf ee Soomaalinimadii kii saxda ay soo baxdo ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal ma marka maxaa keenay waxaas horay u soo dhacdo taariikhda islaamka soo dhacdo ayaama taar bay soo dhacday waa ogtihiin dadka markay duloobaan oo la dulaysto taas waxay muujinaysaa way dulaysan yihiin dadku way san dulaysan yihiin waa la dulaystay dulli baan ku noolahay adoonsi waay adoonsi wax kala adoonsi waa Samson waa adoonsi marka in aan ilaa heerkaas ina gaaro naftan mar bay baxaysaa Ilaahay baa bixinay markuu Ilaahay ugu talagalo may dhamanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halka ugu sii wado dawladda way ku sharciyeynaysaa hub qaada iska celi wasin san ka gali inta cadaabka sii gali meesha galnays hub sharciyeyso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas inta la eg iyo dullinimadaas inta la eg iyo dadkeena inay saa u ihaanaystaan ganacsadana inay ihaanaystaan dadkeena micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadku dhan wada hoggaansamaan waa la sandulaysan ee halkan waxa la isugu yeeray waxay tahay waran nimanka ma iska celin karnaa mise iska celinayna su'aashu waa taas mise dulligan aan ku sii jiraynaa dulligan annaga dawladda iyo ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed culimada in dheer garadka dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan waxa la rabaa inay go'aan gaaraan inay iska celiyaan war hadii bulshadii ay qayb lacag siinayso qayb qarinayso qayb logistics oo dhan u qabanayso wiilkeena la soo xiraa la difaacayo la daba ordaayo maanta la galayo ciidamada amnigu maxay ku sameyn karaan meesha maxay ka qabanayaan dawladdu maxay sameeysaa dawladdu maxay sameynaysaa dawladdu soo dadka ma haddii dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinayo oo dhinac looga shaqeynayo oo dhinac la wado soo meel dab aan damaynin biyo yar ku tufaqada maanta soo ma aha dabku ma damaayo in maanta la isu yimid oo halkan la isla joogo waxa weeye war diinteeni hadaynu dad muslimiin nahay saanay qabtaa war dawladeeni hadaynu dawlad leenahay saanay leedahay shuruucdeennina saanay dhigaysaa war haddii aynu shacabkii nahay maxayna la gudboon marka haddii aan ganacsatadii nahay maxayna la gudboon noocan hadda loo sheegay oo ah annagu hadee wixii waa leeynaa siiqatu tamriidka sheekh loomba siiqatu tamriidka wax loo gudbinayo looba xayawiye raganima loo baahay nimankan waxaan u baahanahay ganacsatadu safka hore inay soo fadhiisato shilin in siin ma leeyahay banaanka la istaago
kadibna dowladda waxa loo diro halkan uu joogaa uu soo hadiday meeshaas uu joogaa telefoonkana ayaa ay dhibay qofkana ay hadiday meeshaan uu qabanaya dowladana waxa waajib ku ah shaqada ay qabato dadkeeda inay difaacdo in laga hortago hay'adaha amnigu inay dhageystaan oo meeshan uu khatar ka jirtaa markaba in la tago oo dadka la badbaadiyo in sida amniga dadka gaar ahaan ganacsatada in laga warhayo la dhowro in taas micnaheedu ma aha inay aan leenahay ganacsatadu nimankan bay la shaqeeyaan maaha laakiin wasaan idin sheegay ganacsatada ma ahee ama dowladda dad u shaqeeya ama ganacsi dad ku jira ka yar iyo ka weyn yani waxa weeye from the top to the bottom ma aha dadka ganacsatada waaweyn ma aha iyo kuwa guryaha leh kuwa xoolaha dhaqanaya kulligan isku mid baan nahay waxaan u baahannahay inaynu nimankaas aan dhahno intaa ka badan maya meelaha la yidhi sheekh mukhtaar uu yidhi ama muxuu ku dhahay sheekh cali wajiis uu yidhi umaadsan yahay nimankii way ka dhammaadeen way ka tageen bilaash kuma tegin bilaash kuma tegin waa la iska celiyey waa la iska celiyey haddaynan inagu iska celinin kuwii meelaha ka yimid halkan ay imaanayaan meel aan la iskaga celinin oo aynu baarqabyo ka nahay baa jira oo dad dhintay oo halkan ay ihaanaysane kaala imaada oo halkan aynu atawaadka iyo baadda ka qaadanaynaa oo la dul fadhinaynaa baa orana wayna isugu yeeranayaan wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhalaya bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la bedelay diintoodii baa la bedelay dhibaataa dhacday waaxid khaarijiya oo khaariji dhalay hadda almost hadda way bateen soo ma aragtid bulsho dhan oo khawaarija soo baxaysa oo isu soo wada dhaldhashay marka waxaan u baahannahay inaan isbadbaadinaan u baahannahay mustaqbalkeena inaan badbaadino diinteena badbaadino number one dalkeena inaan badbaadinaan u baahannahay ganacsiga waxaa waaye aan rabno dalkan in la maalgeliyaan rabnaa in ummada yimaadaan baan rabnaa haddii aan basre la gaari karin haddii aan webigaba la gaari karin haddaan beerihii investment lagu samayn karin haddaan meelaba la gaari karin dee dadku maxaan gadnaa maalin walba adduunkaan taagannahay beeraan leenahay xoolaan leenahay intaan leenahay noo imaado kaale soo cararay haddee xagdii meel walba la taagan yahay hadday nimankii meel walba taagan yihiin say ku dhici kartaa in laynoogu imaado inagii baa bararinayna oo macal bararinayna oo cayilinayna oo siinayna maxaan ku dhahaa lacagtii ku wadna oo ku daldalayna anigu messajkaas dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray xilligii caqligeenu shaqayn lahaa xilligii damiirkeenu shaqayn lahaa xilligii dullinimada aan ka bixi lahay aniga dulli waxaan dareemayaa inaan marxaladii uun tataarku ay samayn jireen iisii joog meesha iisii fadhi seef baan raadsanayaayoo koox saf sii gala saa usii taagnaada intaan silaax aan idinku layn lahaa aan keensanayo deedna ayagoo sidii u taagan loo imaado gamta laga geliyo inaynu marxaladii oo kale waana duruuf dembiyaan gallay dhibaatooyin baan gallay marka ciqaabta ilaahay waxaa ka mid in ilaahay dadka dulleeyo marka nooc oo waxaan maraynaa marxalad dullinimo ah ayaan maraynaa dullinimada ka baxalo seen cadow isooga celinaynaa seen dal ku difaacanaynaa seen diin ku difaacanaynaa seen dad ku noqonaynaa daba dhilif baa inaga buuxsamay oo shisheeye oo shaqays milan ah waxaa inaga buuxsamay daba dhilif shabaabka xoolaha siiya oo dadkeenu waa daba dhilifyo kale waaye waa isku midun waxan ma aha midka oo dowlad heble ama xoola ka qaata ee deedna dowladnimada iyo dadnimada iyo wax oo dhan ka soo horjeeda dalkan keliya daba dhilif maaha waxaa daba dhilifa
cadowgan ugu xun midka xoolaha siinayna waa daba dhilif kale waay marka daba dhilfyadu way badan yihiin hay-aduhu waxay amran yihiin inay fuliyaan shuruucda iyo xeerarka la dejiyey in la fuliyo waa laga maarmaan shacabkuna waxaa laga maarmaan ah noocay doonaanba ha ahaadaan qaybahooda kala duwane in ay dowladda la shaqeyn si cad madaxda bulshada madaxdeeda culimadeeda ganacsatadeeda dowladda qaybaha kala duwan ee bulshada muhiimka ah waa madaxdii ummadda wey ahlulxalli walcaqdi wey dadka ahlulxalli walcaqdiga ah waxaa laga rabaa warcad markay timaado nimankaas khawaarijta markay timaado anu meel heblaan deganahay oo sir qarinaya meeshaan war waxaas inagagama tegayaan nimanka madaxa soo faydo isa soo diyaari wax kaaga sokeeya inaad isdifaacdo ma jiro isdifaac haddaad at least 1% la imow dowladdu inta kale 99% ha kuu keento laakiin wanka muxuu yahay adigu go-aan la imow soo sheeg war halkaan khalad ka jirtaa war waxaan ka shakiyey laba meeshan habeenkii soo hoyato meelahan mararka qaarkood waa ka shakiyey war mid aan aqaano oo shabaab ahaa oo qaraabo nahay baa yimid war midaa halkan jooga war midaa isoo wacay 1% la imow dowladduna asagii bay soo qaban way xiri way maxkamadayn shaqay ka qabsanaysaa xeerkaa la marinaya laakiin yaynaan sida idaha uun shib deedna mid kurk soo qabo kana gawrac kana soo qabo iduhu ma qayliyaan waxa ma sameeyaan waa la sulma waa lagu cunaa marka ida dadkeeni ma idaan noqonay imise qof oo qiimo leh dadka ugu badan oo dhibaatada ugu waaweyn soo gaaray waa kambaniyadeen ganacsiga ee waaweyn madaxdii awe hebelo tirin karnaa maalin walba dhibka haysta kad waa la gooyey dami intaasoo xarimood burburi intaasoo khasaare ku rid hadday la qiyaaso inta khasaare ka soo gaarta nimankaas yani millions of dollars oo khasaare ayaa soo gaaray kambaniyada oo ay soo gaarsiiyaan waa cadow nimankaas cadow idin yihiin marka cabsida kulligeen aan iska dayno kolon baan dhiman doonnaa waana iska celin karnaa waana iska celinay wax badan oo badan la qabtay laakiin waxaynu u baahan nahay iskaashi waxaynu u baahan nahay marka hore horta bal caqligeena inaan ka shaqaysiyo marka labaadna waxaynu u baahan nahay inaan iskaashino marka saddexaadna waxaan u baahan nahay in aan xorowno si dhab ah inaan xorowno si dhab inaan xorowno ayaan u baahan nahay haddii waxaa la yidhahdaa dadka hadday caqiidada mushkilad ka qabo waxba iskama celiyo nooc doonaba ha ahaado hadday caqiidada uu qofku ka xanuunsanayo waxa la wax iska celinaya malaha bulsho aan caqiido lahayn waxba iskama celiso qof aan caqiido lahayn waxba ma rumaysna waxba iskama celiyo waxaynu u baahan nahay inaynu diinteennana aynu ku dheganaano aaminsanaano caqiidadeenna xoojino waxaynu u baahan nahay in aan rumaysnaano sidan un baan ku jiraynaa sidan unbu xaalkeenu ahaanayaa haddii aynaan nimankaas iska qaban waxaa ugu horeeya marka oo maanta loo fadhiyaa marba meel bay leedahay maqaamku maanta waxaa weeye nimanka ayaynaan shilin $1 yaynaan u taagin $1 yaa loo taagin shacabka soomaaliyeed oo dhan aan la hadlaya waxaan leeyahay walaalayaal waxaan nahay shacab muslimiina oo ilaahay subxaanahu watacaala uu muslimiin ka dhigay oo muddo dheer weligoodba muslimiin soo aha waxaynu nahay dad ilaahay uu mideeyey oo wasaa'ilkii lagu midnimada keenayo o dhan ilaahay siiyey hadday luuqa tahay xataa hadday tahay geographically dhulkeen hadday tahay oo bad iyo buure iyo bele inama kala goyso haddaan nahay dad isu wada eg dad wada dhashay hal dadaan nahay dadka noocaasa maanta qarniganaa joogno sidaan inay u noolaadaan
ilaahay ma raali gelinayso ilaahay ma raali gelinayso marka waxaynu u baahannahay inaan dib isku laabano oo aan dowladnimadeennana iyo midnimadeenna ka bilaabata midnimadeenna aan dhisno oon dhisano cadowga oo ay kuwaasi ugu horeeyaanna aan iska qabanno ayaan u baahannahay marka mar kale waan ammaanayaa ciddii hay-adihii soo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso iyo FRC oo iyo hay-adda NAMLAC oo guud ahaan hawshaan soo qalqaaliyey oo dadka isu keenay waxaan ammaanayaa culimada kasoo qayb gashay sharafta leh waxaan ammaanayaa ganacsatada qiimaha badan ee halkan maanta kasoo qayb galay waxaanan si guud mar kale aan ugu adkeynayaa dhammaanteen aan isu dardaarmaynaa inaynu nimankaas sidaan kusoo afjari lahayn inaan wada dhaqaaqno siday isooga xoreeyeen wadamadii hadda la sheego o dhan inaan isooga xoreyn waa la iska xoreeyey waxay qasabtay inay waa la sheegay Syria hadda waad arkaysaa waxaan rajeynayaa guul baan u rajeynayaa iyo inay nabad iyo wanaag iyo Syria ilaahay idankiis dowlad wanaagsan ilaahay u dhaliyo laakiin runtii raggii markii hore dabaylahan ay qaadeen waad degeysanayseen hadaladooda iyo siday u hadlaan iyo siday maaragtay ay isu bedeleen iyo sidii aan cabsida lahayn ay bulshadooda ugu saraaxoonayaan ay u leeyihiin dee markaas qaladkaasu ahaa waxaas waana ka laabanay oo saasaan u aragnay saraaxa loo baahanyay dadku inay saraaxoodaan ayaa loo baahanyay waxaa waaye qofku shalay dhalinyaro ahaa waxbaa istusi karay meel buu wax ka arki karay sibuu wax u muuqan karay laakiin dee dabiicatul bashar qofka qiimaha leeyahay waxaa waaye inuu wixii ka toobad keeno haddii uu arko dariiq ka fiican hadduu arko inuu qaldanaa inuusan bulshada ka cabsan soo waajaho war shalay saasaan ahaa maantana waa kan waa sidan aan ahay deedna kalsooni waad arkayseen sida maxaan ku dhahaa loo soo dhaweynayay ninkaas waxa loogu soo dhaweynaya lagu aaminaya madaxda looga dhigtay ee dadku u dabayaacayaan waa saraaxada iyo habka uu ilaahay warda shalay nin dhalinyaro aan ahaa sidana wuxuu arkay waxaa waaye markaan wixii arkayna waa ka leexday waana ka dagaalamay waa diiday anagana saasoo kale aan u baahannahay inay dadkeennii dabayshaasi qaaday inay caddeeyaan bulshadooda usoo laabtaan oo deedna deen marka dambe hadday rabaan hogaamaha ugu sarreeya ay noqdaan waddankoodii waaye dalkuna dalkoodii waaye dadkuna waa dadkoodii marka aad iyo aad aad umahadsantihiin waan markaa waa idiin mahadcelinayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu